Guuldaro ka dhalatay dagaalkii 1977 waxay ahayd mid aan kaliya ku ekeyn goobaha dagaalka, balse si toos ah u saameysay gudaha Soomaaliya. Dadka rayidka ah, siyaasiyiinta iyo ciidanka dhammaantood waxay dareemeen rajo beel, jahawareer iyo caro ballaaran oo horseeday mid ka mid ah waqtigii ugu murugada badnaa taariikhda casriga ah ee dalka. Haddaba qaybtan waxaan uga hadlaynaa saameynta gudaha Soomaaliya, afgembigii dhicisoobay, kacdoonnadii shacabka, iyo bilowgii burburka dowladda. Haddaba intiina u gudbin dhammaan, biliis waxaan kaa codsanayaa channelka haddaad ku cusub tahay inaad subscribe dhahdo. Dhicitaanka rajooyinka qaranka. Guuldaradii dagaalka waxay si xoog leh u wiiqday kalsoonidii shacabka ee dowladda. Dad badan waxay aaminsanaayeen in Soomaali weyn la heli karo, balse guuldarada dagaalka waxay muujisay in himiladaasi jabtay. Warbaahinta dowladda oo horay u buubuunin jirtay guulaha dagaalka ayaa mar qura aamustay. Muuqaaladii farxadda markii ogaadeen la qabsaday ayaa u rogmay murugo. Shacabkan wuxuu isweydiiyey maxaa khaldamay. Haddaba afgembigii dhicisoobay sanadkii 1978 9 Abriil 1978 qaar ka mid ah saraakiisha militariga ee ka soo horjeeday Siyaad Barre waxay isku dayeen afgembi. Afgembigu wuu dhicisoobay waxaana la xukumay ama la dilay inta badan hogaamiyayaashii. Tani waxay bilow u noqotay in kalsooni darrada iyo khilaafaadka gudaha ay si tartiib ah u koraan. Afgembiga dhicisoobay wuxuu calaamad u noqday in burbur siyaasadeed uu socdo. Culayska dhaqaale iyo bulshada. Dowladda ayaa wajahday dhaqaale burbur, kharashaad badan oo ku baxay dagaalka, caawino laga waayay saaxiibada caalamka. Qiimaha nolosha ayaa sare u kacay, shaqo la'aan ayaa badatay, mushaar la'aan iyo khalalaaso dhaqaale ayaa laga dareemay magaalooyinka waaweyn. Adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada ayaa hoos u dhacay iyadana si weyn. Haddaba kacdoonnada shacabka iyo dareenka dadweynaha. Waxaa jiray caro guud ah oo shacabka ah, qaar bilaabay in si hoos ah ugu hor yimaadaan taliska. Dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo jabhado ayaa bilowday. Qaar badan oo ka mid ah shacabka waxay bilaabeen inay ka baqaan in dowladdu isku beddesho kaliya talis. Shacabka Soomaaliyeed waxay dareemeen in guuldaradu aysan ahayn oo kaliya mid dagaal, balse ay tahay mid qarannimo, siyaasad daalan iyo kacdoon qaran. Siyaad Barre wuxuu bilaabay inuu si xooggan ula xisaabtamo cid kasta oo loo maleeyo inay mucaarad tahay. Waxaa dhacay xiriirada siyaasiyiintii hore, ka saaridda saraakiil muhiim ah, warbaahinta xorta oo la xakameeyey. Sidoo kale gobollo qaar waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo gooni-goosid ah oo horseeday dagaallo sokeeye. Markii dambe bilowgii khaladaadka dowladda. Inkastoo dowladdiisii jirtay, haddana awooddii dowladeed waxay bilaabatay inay wiiqanto. Waxaa lumay kalsoonidii shacabka, saaxiibadii caalamka, midnimadii gudaha dowladda. Waxaa la dhihi karaa dagaalkii ogaadeen wuxuu ahaa bilowgii burburka dowladda Soomaaliyeed. Waa markii ugu horeysay ee ummadda Soomaaliyeed ay si buuxda u dareento dowladdu inay leexday. Haddaba dhalashadii jabhadaha mucaaradka. Afgembigii dhicisoobay sanadkii 1978 wuxuu dhalay dareen nacayb ah oo ku abuurmay gudaha ciidamada. Saraakiil baxsaday ayaa samaystay jabhado hubeysan, kuwaasoo dagaal bilaabay. Haddaba jabhadahaas waxaa ka mid ahaa SSDF Somali Salvation Democratic Front, SNM Somali National Movement, iyo USC United Somali Congress. Tani waxay ahayd bilowgii waxaa loo yaqaanay dagaalkii sokeeye, kooxo hubeysan oo doonaya inay meesha ka saaraan taliskii dowladdii dhexe. Kacdoonno qabiil iyo xukuumad ka soo horjeeda. Dadkii rayidka ahaa waxay dareemeen cadaalad darro, culays dhaqaale iyo cabsi siyaasadeed. Gobollo badan oo dalka ayaa laga bilaabay kacdoonno dadweyne, gaar ahaan waqooyi iyo bartamaha koonfurta. Colaado hubeysan iyo burburka dowladda. Sanadkii 1988 dagaal culus ayaa ka qarxay magaalada Hargeysa markii SNM ay weerar ku qaaday saldhigyo dowladeed. Dowladda ayaa la rumaysan yahay inay xasuuqday kumanaan qof, waxayna duqeysay magaalooyin dad shacab ah ay degan yihiin. Taasi waxay keentay in dagaalkii sokeeye ee si buuxda uga dhaco dhammaan dalka oo dhan. Xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya waxay la dagaalamaysay shacabka ay matalaysay, taasina waxay jab weyn ku noqotay haybaddii dowladnimada. Haddaba dhicitaanka dowladda Siyaad Barre. Sanadkii 1990 dagaalkii USC iyo ciidamada dowladda wuxuu gaaray magaalada Muqdisho. Dowladdii dhexe ayaa meesha ka baxday iyadoo aanan beddel lahayn. Magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo dalka ka mid ah waxaa ka curtay fowdo, boob, dagaallo beeleed iyo hub furan. Waa markii ugu horeysay ee Soomaaliya noqoto dal dowlad la'aan ah. Soomaaliya waxay gashay muddo dheer oo firaaq siyaasadeed ah. Saameyntii dagaalka. Burbur qaran iyo qaxo qaran. Waxay la socotay burburkii ciidamada qaranka, joojinta adeegyada bulshada, kala daadkii nidaamkii dowladnimo. Haddaba kumanaan Soomaali ah ayaa u qaxay dowladaha dariska ah sida Kenya, Itoobiya iyo Djibouti, sidoo kale Yurub, Ameerika iyo wadamo badan oo Carabeed.
waxaa bilowday qarnigii qaxootiga Soomaaliyeed. Dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya wuxuu ahaa mid xambaarsan himilo qaran, laakiin wuxuu isku beddelay burbur qaran. Halgankii Soomaali weyn wuxuu isku rogay burbur gudaha ah, waxaa la waayay dowladnimo, midnimo iyo kalsooni qaran tan iyo 1991. Soomaaliya waxay la daalaa-dhacaysay sidii dib ay ugu heli lahayd dowlad xooggan iyo bulsho midaysan. Kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1991, waddanku wuxuu galay firaaq siyaasadeed iyo fowdo hubeysan. Beeluhu waxay noqdeen kuwo isbaaraya, qaxooti badan ayaa ka cararay dalka, halka caalamkuna si baan ula yaabay sida dal dhisan ugu rogmay dagaal sokeeye. Haddaba intaa kadib markii jahwareerkii bulshada uu ku batay, faragelintii caalamka ayaa bilaabatay. Sanadkii 1992 Qaramada Midoobay waxay bilowday howlgal loogu magac daray UNOSOM-kii koowaad, ujeedkuna uu ahaa in gargaar la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed. Haddaba isla sanadkii xigay 1993 waxaa bilaabmay UNOSOM-kii labaad oo xambaarsanaa ujeedooyin dheeraad ah: hubka dhigista jabhadaha, dib u dhiska hay'adaha dowladeed iyo nabadeynta gudaha ah. Howlgalku wuxuu ahaa mid qurux badan, laakiin xagga dhabta ah wuxuu la kulmay iska caabin xoog leh. Soo geliddii ciidanka Mareykanka ayaa keenay ciidamo gaaraya 25,000 oo askari, kuwaasoo ay hogaaminayaan saraakiil sare. Waxaa lagu magacaabay UNITF, ujeedkiisuna uu ahaa in la ilaaliyo bini'aadanimada, in la kala dhexgalo beelaha Soomaaliya, in la helo xasilooni si loo dhiso dowlad. Markii ugu horeysay ciidamada Mareykanka ayaa cagta soo dhigay xeebta Muqdisho, waxaana la rumaysan yahay in Soomaalidu ahayd dalkii ugu horeysay ee Afrika laga badbaadiyay burbur qaran oo buuxa. Iska horimaadkii Warlords iyo diidmadii faragelinta waxaa dhacay dagaallo kala gooni ah oo dhex maray ciidamadii UN-ka ama Mareykanka iyo kooxo hubeysan. Dad badan ayaa u arkay faragelinta mid aan la isku raacsanin, qaarna waxay rumaysnaayeen in laga leexday gargaarkii oo lala yimid dano siyaasadeed. Dagaalkii Black Hawk Down ee 3 Oktoobar 1993, ciidamada Mareykanka ayaa weerar ku qaaday meel ay ku sugnaayeen saraakiil sare oo ka tirsanayeen jabhadaha. Weerarka ayaa sababay in 2 diyaaradood oo Black Hawk Down la soo rido. Dagaal culus oo dhacay 17 saacadood gudahood wuxuu sababay inay dhintaan 18 askari oo Mareykan ah, kumanaan Soomaali ah oo ku naf waayay. Muuqaallo argagax leh oo laga duubay meydadkii ciidamada Mareykanka. Dagaalkii Black Hawk Down wuxuu ahaa meeshii ay ku jabeen yididiiladii faragelinta, isla markaasna dunida ay ku baraarugtay in Soomaali ay sahlaneyn. Haddaba ka bixiddii Mareykanka iyo UN-ka markii ay la kulmeen iska caabin xooggan ee gudaha ah, sanadkii 1994 Mareykanka wuxuu si rasmi ah u joojiyay howlgalkii Soomaaliya. Isla sanadkii xigay 1995, ciidankii u dambeeyay UNOSM-kii labaad ayaa isagana iskaga baxay Muqdisho ayagoo aanan gaarin yoolkii loogu talagalay. Waxaa lagu tilmaamay faragelintii ugu guuldarrada badneed ee Qaramada Midoobay. Intaa kadib natiijadii waxay noqotay burbur hor leh iyo firaaq sii daran. Ka bixiddii US-ka ama UN-ka waxay dalka u reebtay fowdo sii socoto, jabhado sii xoogeysanaya iyo kalsooni darro caalami ah. Sidoo kale waxaa bilowday hogaamiye kooxeedyo, beelo is-hubeynaya oo nidaamka dowladeed aqbalaynin. Magaalada Muqdisho oo u qaybsantay jabhado, Soomaaliya waxay noqotay dhul ay adag tahay in wax laga xukumo, caalamkana uu iska sii jeestay. Faragelintii UN-ka iyo Mareykanka ee Soomaaliya waxay ahayd fursad qaali ah oo lagu heli lahaa nabad, balse waxaa lagu fashilmay isfahan la'aan, xadgudub iyo dano isdiidan. Tani waxay qayb weyn ka ahayd in Soomaalidu sii gasho 20 sano oo burbur ah. Dagaalkii Ogaadeen wuxuu horseeday burburkii dowladdii dhexe. Faragelintii caalamkana waxay xaqiijisay in dowlad dib loo dhiso aysan sahlanaan doonin. Intaa ayuu ka egyahay dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya. Mar kale waxaan ka codsanaa channelka haddaad ku cusub tahay inaad subscribe dhahdo.